hayd ay sanataro iyo gudoomiyaha ayaan darada ka soo cusboonaatay Puntland maanta in la dhaho anagu mas'uuliyiina deegaankayga u soconna siyaasad aan u socon in la dhaho diyaaradda ka soo dega saadiyo afkay furatay hadal bay meesha soo dhigtay waxay tiri bal su'aal hal la weydiyo dimuqraadiyadda Puntland see la iga celi dimuqraadiyadda soo mid aad u diintahay ma soo mid aad aareejaan ciidanka ugu tahay ma dimuqraadiyadda maxay tahay dimuqraadiyadda aad ku doonaysaa garow ugu soo degtay saadiyo waxa garow ilaa ka soo degtay lagu diidan ku sheegay shalay waxa lahayd Puntland inay burbudho oo baabado baan jeclahay sida laga soo bilaabo hadalkaagi horta ha soo dhageyso annaga Puntland intay baabado gadaal ila waa la isbartay hadeer waxaan anigu jeclahay Puntland inay baabado oo gadaal ila waa la isbartay maanta la soo bilaabo beesha aad ka dhalatay ee Carab Saalax buu kursiga kaaga dhacay abti ku fariiso ku yiri waad ku fariisatay balse maxaa laga dhaxlay wax qof kasta oo Puntland duminteeda iyo cadow kasta oo Puntland leedahay inaad soo raacdid baa laga dhaxlay siciidani baa mar kale hadii aan ku kursiga kugu cimaamaday abti soo ku yiri sidoo kale futada xasan baa laga soo saari waayo waxaad ilowday inaad Puntland kursiga kala timi aqliga kugu qoflan muxuu yahay Puntland oo dinto siira laga soo bilaabo saadiyo abti hal su'aal aan ku weydiinaya Puntland hartiga iyo leelkase iyo daaroodka dhistay wiilka leelkase teedhisamekiisa suugiisu saaray haday dunto ka warsan gari BM-kiisa iyo kaarihiisu saaray kan ma jeertan BM-ka iyo kaarihiisu saaray kan ulbaxanta BM-kiisa iyo kaarihiisu saaray kan dishi sheek teedhisamekiisa suugiisu saaray kan qabaalkiisu saaray abti su'aal aan ku weydiiye haday Puntland dunto ilaa hadda waxa lagu wada joogaa waa constitution kaas iyo hadii ku nidaamka xukunka ay abti su'aal ku weydiiye hadii maanta dhowr dhaho Puntland dunto kala damayto meesha ka baxdo oo qabiil la soo fariisto abti futada ayaa difaacaya Carab Saalax baa ka dhalatay soo reerkaaga loo soo kufsi dooran may su'aal baan ku weydiinaya ilaa nidaamka haduu meesha ka baxo waa la iskufsanaya waa la isdhaxaya waa la isdilaya waa la isqoy reerka ka itaal daran yahayna waa la kufsanaya abti su'aal ku weydiiye Carab Saalax baad ka dhalatay yaad u baxsanaysa reerka aad ka dhalatay Puntland waa degaane mudug bay degaan nugaal bay degaan bari bay degaan soo loo kufsi dooran may soo loo dhac dooran may soo loo shaqo tagi may soo waxa BM iyo kaarayaasha watay hartiga iyo daaroodka kala ahay reerkaaga maanta ugu awood yare soo u shaqo tagi maya abti waxa ka maqan inaad maanta constitution-ka iyo kala dambeynta Puntland inaad ku dhaqdhaqaaqayso ku nooshahay haday meesha ka baxdana cid ka awood yar ma jirto cid ka fatoxun oo loo kufsi tagayo reerkaaga ma jirto iyo kuwa la mid kaaba bal maxaa isku halaynaysa yaa isku halaynaysa abti siciidani baa garow iga ceshay baa tiri inuu ka casho ma ahayn khalad buu galay siciid way maqla siciid farinteeda gaarsiiyay khalad baad gashay siciid inaad celisidna ma ahayn saliga garowe ayadoo ka tiinaysan oo kala laga bixiyay oo dirac saaw haysata baa rabay inaad saliga ku tuudid baa rabay qolka sheelada ay gelisan qolka sheelada inaad gelisid bay xaq u lahayd kuwa samaanta ciidanka waa qore saadiyaana la ka celiyay arajan war ma futada saadiyo miyaa saaso ka gashay arajan wareer holayo ma futada saadiya ilaahay siyaasadan ka geli mid kale aan ku daro nimayahow Soomaaliya markii la joogo saadiyo dibindaabyada Soomaaliya ay ku qabaan waa ogta saadiyo Puntland waxay ku tahay Puntland farxaaraan ay ku tahay dhibaato kasta ay u soo xambaardo Soomaaliyana far nijaasaad ay ku tahay waa mid hadeer wadaadada iyo culimada ku kacayeen ee organization-ka khaniisiinta wadatay way meeshay tagtaba waxaan fidmo munkar dhibaato ahayn lama joogto siciidani waxaan leeyahay mar labaad markaa waa kugu qaadanay mar dambe hana oran waxaan ka celiyay diyaarad baan ka celiyay inta soo degtiraahdid halkaas ku qabo
ummadda ka qabo ilaahayna ajar buu kaa siinayaa haddii alla ku rooyo ummaduna waa kugu ducaynaysaa say munkar iyo haddii alla ku rooyahay khaniisiin waxayn kama shaqayse fudmo iyo dabhuri waxayn kama shaqayse xabsiga dhig annagaa ku odhanayna anoo afka reer puntland ku hadlaya baa intaa iga gaarsiiya sacdiye firimbi ka rabo laba saar maanta waxaa dhacday xasuuq aad iyo aad u daran baa dhacay waxaa maanta beesha biyamaal dhalinyaro ciidankeediia laga dilay 34 dhalinyaro ayo ciidankii saraakiil isugu jidha waxaa dhaawacmay 45 ilaahay waxaan leeyahay inta dhaawacan allah u bogadhayo inta dhibatayna samir iyo iimaan allah idinka siiyo ayagana allah u naxariisto waxaan rabaa assassination-ka nimanka dhalinyarada ku dhinteen inaan waxa idinkaga taataabto intaan ka ogahay xoogaalka uga ahay waxaa dhacday ciidankaas maanta waxaa lagu qarxiyo qarax loogu dhigay xerada jaalasiyaad ciidankaas waxay ka tirsanaayeen ciidan farmaajo sameeyey oo tababaray oo uu ugu magac daray 14 Oktoobar qaraxii soobe ciidan loogu magac daray ciidankaas waxay deganaayeen ama saldhigoodu ahaa degmada Marko ciidankaas farmaajo dhisay qalabeeyay halkaana dajiyay say cadawga iskaga dhiciyaan al-shabaab deegaanka ay ka soo jeedaan oo marka ahna biyamaalla ay amni ka dhigtaan oo aan nimankii hawiye aysan u feera bahalkiyeyn oo haddii aan ku reey loo bahalkiyeyn oo aan awood loo tusin intii 5 sano farmaajo joogay miyaad aragteen hawiye ama habargidin ama abgaal biyamaal isku qaadaya biyamaal ciidankaas loo sameeyay hawiyana banaan bay ka mareen xasan baa meesha yimid ninkii ugu sareeyay ee ciidankaas mas'uulka ka ahaa ee degmada gudoomiyaha ka ahaa oo magaciisa la oran jiray haddii aan ku rooyahay waafow la oran jiray maalintii xasan la doortay 2 bilood ka bacdi waatii qarax lagu dilay ciidankan waa la qaaday muqdisho la geeyay waxa lagu yiri 40 bariyo tababara baa la idin furaya taliyihii ciidanka waxa ahaa oo taliye ciidan farmaajo oga dhigay nin xawaala ah oo cali madaxweyne ah oo la oran jiray Cabdullaahi cilmi la oran jiray cali madaxweynaha taliye u ahaa waa laga qaaday nin habar gidira oo sacada baa taliye looga dhigay ma hasalaad baan ka qaadaya oo taliye oga dhigaya ninka habar gidir ciidanka waa raray wuxuu galiyay xerada jaalasiyaad ee Muqdisho saaka ciidankii la fayliyay markii saaka ciidankii la fayliyayna nin jaakad qarax ku labisan ayaa faylkii lala soo galiyay waa xerada ciidanka iyo meeshu ma aha ciidan koroyo soconayo meel qarax la beegtay ma xeradii ciidanka lagu faylinayay baa nin maas jaakad qarax qaba baa la dhex gashay oo faylka digtoorowdi la qaadanayay markii digtoorow la yiri digtoorowdi jig baa xigtay waa la kaa ciidankaas 34 biyamaal nafta waayay 45 biyamaal waa dhaawac ciidankaasi biyamaal oo soo can bay ahayd assassination-kaas hadda waxaa loo xiray taliyihii sacad oo magaciisa la yiraahdo magaciisa waxa la yiraahdaa waa banduulaha ciidanka guutada Abdi Cali Raage oo habar gidiro sacada hadda xiran laakiin Abdi Cali Raage qorshii wuxuu fuliyay ma salaad birna waa la sii deynaya intaas oo ciidankaas ugu yaraan dhaawaca dhibashada burburka de hal urur baa meesha ka baxay oo biyamaal ah inta hadayna ayr baa loo layn doona mid kalena waa in sheegaya reerka biyamaal baa la hadlaya maanta markuu qaraxu dhacay 34 biyamaalka dhibatay 45 dhaawacantay idaacadii hawiye haday tii qaranka noqoto TV-ga qaranka mid ku qoran yahay haday noqoto kuwii wariyaas ka dhigi jiray markii habaray dhow tiraado qarax baa dhacay xaq ku dhacay ma aragtay wax xataa u tacsiinaya biyamaal wax xataa qoraya ma aragtay TV qaran hadhiin kuwii qaraxyada qarax waxa ka dhacay xagga laba neefs dhigay ma aragtay ma assassination ma hasalaad ka dambeeyay waliba hadduu qarax ba ku dhacayna la yiri low profile laga dhigo oo hala aamusayo la buunbuunin ayuu ah ilaahay dhalinyarada ha naxariisto beeshan biyamaal waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo tala idin taala iyo hadda baraarugteen ma umaynayaa hadda wixii ka dambeeya bal inta hadhay ciidanka inaad la baxsataan allah idinku duwo inaad la baxsataan ciidamada farmaajo sameeyo dhan kulli waa la soo abjaraya kulli wixii ciidan farmaajo sameeyo dhan waa la soo abjaraya waa la baabi'inaya maalin meel baa lagu shubaya maalin bixira la geynaya al-shabaab baa leeyahay weerara 4 dhinac leerka loo damiyo kulligood
mid qaraxdaa loo soo gelinaya sabkaa lala gelinaya la kacaa laleeyahy isku soo duub beesha biimaal waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo dhalinyarada baaba'day ee halkaa ku dhimatay inta dhaawacaana allah u boogadhayo intaasaan kaga gudbayaa taasina cashar ha idii ahaato bal inta dhiman saa ula baxsan lahaydeenna ka fakera oo ka shaqeeya qodobka saddexaad oo aan dul istaagayo reerkii garxajis waa kaceen ciidan caruur soo bilaabeen meel magaalada Hargeysa dhinaceeda buur gacan libaax iyo meeqa wax la yiraahdee ciidan bay ku aruuriyeen ciidankii bay ii soo direen ciidan meesha lagu aruurinayo bal ciidankii waa kuwaane ila daawo tumaxiyo rasaasiyo kid qararka dacartiyo yuraaciyo dilhooye kuntigaynu furaniyo kama kuma tagaa ilaahay baan ku dhaartay waana intaan ma ciidan idinka garxaajisow intaan ma ciidan idinka intaan qadaqaran baa ku filan qadaqaran hadii loo diro waa leefaysaa astaghfirullah laakiin yaanan idin niyad jabin halgan kasta oo bilaabanaya waxba ku bilowda halgankaas aad aragtay sool boqolkiiba 80 lagu nadiifiyay ee Muuse Biixi godka gooja madaxa kaga jiro wuxuu ku bilowday gabar dhagax tuuraysa iyo wiil kab tuurayo ku bilowday maantana meeshu maraya waa laakiin garxaajiso waa su'aale aan isweydiinay ma leedihiin wiil laandheera dhalaya oo baar qaba oo garaad ah oo isin ah nooc doona ahaade oo dhigi kara gala dagaalka ma leedihiin qaras dhalay oo halkaa u bixi kara oo waxna dili kara waxna cafin kara ma leedihiin idinka dagaalka waxaa u ah aasaaska iyo bilowga waxaa kow u ah garaad cali oo kale ma leedihiin ma leedihiin gaad dagaalka markuu yidhaahdo ka koone qof kasta wuxuu hayay inta dhigo soo dhada wiil hadalkiisa maqlaya ma leedihiin idin ma arag laakiin laga yaabee dee inaan aqoon idin lahayno aad leedihiin barbaar halaabsato fuusha saa usii daysaa markii garaadku hadlo u malayn mayo oo haddii aad heli kadhaan waa laydinka xishoon lahaaye gabdhihiinu sidaan uma baroorteen balala dhegeyso waxaan rajaynayaa kow hoggaan kama soo hadha bahashuye calaanku dhalay labada calaan ee xiirxiiran horta bal iska horkaxeeyo hoggaan samaysta labo keensada rag haybad leh oo muuse wax iska dhigi kara muuse waa wiil laandheera markii xaqiiqda laga sheego markuu Hargeysa joogo si kasta oo isku hayno xaqiri mayo waa wiilka ku khudbayn jiray ana wax dili kara duca qaadan maayo waa wiilka saa gabdhaha uga oysiinaya waa wiil tadhahay marka waxa loo baahan yahay laandheernimo lagu sheegayo inaad beel tira badan ka dhalatay ma waa inaad kalsooni leedahay waa inaad tilaabsan ka dhaa waa inaad gacantaada aaminsan tahay waa inaad dadkaba inaad u aragtid waxa saa u simay ka dhisaan u soo mari kadib wiil inta samayn karo muuso kala maladi isin garaajaa cali kala maladi ya wiil saasoo kale runtayda kugu sheegay ayuu kala maladi inta hadda heshaan kafarna billahi kafar gud lahayn muuse kala hawad dulmaraysan hadii kala sooma waad baroonaysan gabdhaha saa u baroonaya dumarka saa u baroonaya habar jeclay habar awala dhooshay ka qoslayaan dhakh bal maxaa uu laandheerayaasha maxaa qosolka ugu diiday wax iska celiyay waayeen hadiina inta idin sheegay in lahayn naba yahowna suga gooja cadda markaan soo marno meesha aad joogtaan anaga idin kugu imaano idin ka xoreynayna gabdhaha ooyayo Soomaalida ayo garxajisna wallahi oo billahi oo tallahi anagu hartiyaan ku daawanayn oo raadinayna oo xoreynayna xornimay raadinayaan annaga raadinayna xoreynayna hadda idin ku xoreyn weydaan aad baa idin salaamaya garxajis horay u socdaa idin leeyahay inta idin sheegayna raadsada
ciao ciao.